Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin. Waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo oo aan idinka faa'iideeyo naftayda iyo idinkaba dhammaan aan idinka faa'iideeyo maadaama xiliyadan aynu hadda ku jirna ay tahay xiliyo xanuunada koronaha iyo neef qabadka iyo waxyaabahaas ay badan yihiin iyo sonkorta iyo xanuunada qofka ay xoogaa naftu ku dhagayso. waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo faa'iidooyinka ay leedahay xabatu sawdadu. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi xabatu sawda shifaaun min kulli daa. xabatu sawdadu waxay caafisaa oo ay wax ka qabanaysaa oo caafimaad siinaysaa xanuun kasta oo qofka ku imaada, way ka kaxaynaysaa oo qofku wuu ku caafimaadayaa. nebigu wuxuu ka soo reebay ila asaam waalharam, geerida ma celiso, waxaa kalayna celinin duqunnimadana ma celiso, laakiin wax kasta oo intaa ka soo haray oo xanuun ah oo ama korka ku dhaca ama gudaha ku dhaca way daweysaa. sidee loo isticmaala xabatu sawdada? xabatu sawdadu hadday tahay saliid, ma fiicna qofku inuu cabitaan ama wax ku darsado, ma fiicna. adibadu way ka digaan oo waxay dhahaan beerka uma fiicna iyo wadnaha iyo keliyaha uma fiicna ayay dhahaan, iyo sanbabada iyo gudaha uma fiicna. saliid hadday tahay marka waxaad iska marinaysaa korka, meel kastoo ku xanuunayso oo ama nabar kaaga yaallo ama xanuun aad ka dareemayso ayaad marinaysaa. sanboor haddaad qabto, hadduu sanku ku xidhmo waad marinaysaa. hadduu madaxu ku xanuunayo, hadday neerfayaashu ku kacsan yihiin, haddii nabar meel kaaga yaallo, kullu daalika waad marinaysaa. markay midhaha tahay ama ay shiidan tahayna waxaad ku darsan kartaa shaaha, biyo kulul baad ku darsan kartaa, iyadoo midho ah baad ruugi kartaa. waxay iyadu u fiican tahay markay midhaha tahayna saliiddii ayna bannaanka soo joogin, waxay ugu fiican tahay gudaha in loo isticmaalo iyo daakhilka hoose. xabatu sawdada xanuunada ay daawada ka tahay waxaa ka mid ah, lama soo koobi karo dee nabigeena calayhi salaatu wassalaam laba shay waxaan ka hayn daaway ka tahay wiil, geerida iyo duqnimada. xanuunada ay aada u badan hadda ay daawada ka tahay waxaa ka mid ah dhiigkarka, sonkorta. qofka qaba hadduu jirkiisa mariyo sonkortii iyo wixii way ka degaysaa, qofka sonkorta qaba iyo qofka dhiigkarka qababa. hadduu ku darsado shaahii ayadoo midhihii ama budadii ana, ayadana way ka degaysaa. waxaa ka mid a qofka fahmadu culus tahay ee laga yaaba inuu fahmadii uu ka dareemayo caajis iyo culays, isaguna hadduu ku darsado midhaheeda ama budadeeda uu ku darsado cuntada ama shaaha ama wuxuu cabayo markaas ama cunayo, ayadana fahmuu ka helayaa qofku. waxyaabaha faa'iidadeeda ka mid a waxaa ka mid a qofka hurdadu ka yaraato inuu isaguna isticmaalo. korkana wuu marsanayaa saliiddeeda. marka wixii saliid a kor baa la marin, meel kasta oo jirkaaga korka ka mid aad marin. wixii midho iyo budadeeda ana waxaad marinaysaa, waad cunaysaa, waxbaad ku darsanaysaa. faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a dadka madhalaysnimadu ay ku dhacdo, hadday cunaan oy malab ku darsadaan oy xilli kasta cunaan, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siinayo ilmi iyo awlaad ku siinayo. waxaa kaloo faa'iidooyinkeeda ka mid ah dadka ay ukuntoodu yaraato oo ukuntoodu ay daciif ka tahay, sida dhakhaatiirtuba u qoraan kiniinada, meesha kiniinada uu ka qaadan lahaa hadduu xabatu sawdi iyo isku isticmaala malabka isku darsado oo uu ku qaato qaadada oo si fiican ugu isticmaalo, ukuntiina way siyaadinaysaa oo way korinaysaa gabadhii iyo wiilkiiba. faa'iidooyinkeeda caawo oo dhan haddaynu dhahno inaynu wadno aynu sheegno caawo oo dhan ma soo koobi karno. waxaa inooga filan hadalka nabigeena calayhi salaatu wassalaam uu yidhi nebigu, xabatu sawda shifaaun min kulli daa. xabatu sawdadu waxay ka tahay dawe, xanuun kasta ayay dawo ka tahay ilaa geerida iyo duqnimada mooyaane. marka xanuunkaasi meel kastuu kaaga yaallo waa inaad u isticmaasho xabatu sawdada, saliiddeeda iyo midhaheeda iyo iyadoo la shiidayba. laakiin iska ilaali saliiddeeda inaad cunto ku darsato ama aad cabitaan ku darsato ama shaah ku darsato, waayo adibadu waxay leeyihiin wadnaha uma fiicna, way ka awood badan tahay. beerka uma fiicna, kelyaha uma fiicna,
sanbabada uma fiicna bay dhahaan. marka midhaha iyo budadeeda ayaad gudaha u isticmaalaysaa, khaarijiga iyo banaanka korana waxaad u isticmaalaysaa, iyo jirkaaga kale oo dhanna waxaad u isticmaalaysaa saliidda. intaasaan damcay caawa inaan idinla wadaago. saliidaha noocyada ugu qiimaha badan ee kulul ee qofku uu kulayl badan ka dareemayo oo laga yaabo markaba jirkiisa inay u dhaadhacdo, hadday meel xanuunayso, madaxu xanuunaya, neerfayaashu hadday kacsan yihiin, hadday boog ama nabar uu ku yaallo, jirkiisa meel kastuu ka isticmaalaya xabad sawdada ugu kulul waxay dhahaan waa xabad sawdada Bakistan iyo laga keeno. Yaman oo kale ayadana way fiican tahay. Ethiopia hadda Africa oo kale markii la joogo xabad sawdada ugu fiican ee ugu qiimaha badan weeye, welibana alxamdulilah baryahan iyadoo la shiido ayaa la helaa. marka kullu dhammaan waxaasoo dhanna waad naga heli kartaan oo waan keennaa. marka nagala soo xidhiidha insha allah, oo commentiga noogu soo qora wixii aad uga baahataan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.